بسم الله waddankan Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan leh wadamada ku hubooba qaaradda Yurub ayaa waxa muddooyinka ugu dambeeyay Soomaalida ku dhaqan waddankan Jarmalka ay ka hirgeliyeen ganacsiyo kala duwan ayaa waxa ka mid ah magaalada Mainz ee gobolka Rheinland-Pfalz oo laga furay dukaan casri ah oo lagu magacaabo Ayaan Bilan Shop munaasabad heer sare ah oo lagu furay goobtan ganacsi ayaa waxa ka soo qayb galay mulkiilayaasha dukaanka Ulmaawdiin haween dhalinyaro iyo waayeel kala duwan ayaan cabdi iyo axmed yaasiin oo iyagu ah mulkiilayaasha Ayaan Bilan Shop oo iyagu ka hadlay madashaasi ayaa ka waramay waxyaabaha uu ka kooban yahay goobtan ganacsi waxay yiraahdeen qaar ka mid ah culimada ku dhaqan magaalada Mainz oo telefishinka caalamiga Home Cable TV la hadlay ayaa soo dhaweeyay goobtan ganacsi mulkiilayaashiisa ay garabkayga taagan yihiin Ayaan iyo Axmed dukaankani wuxuu noqon doonaa dukaankii saddexaad ee magaalada Mainz magaranaysa looga furo marka waxaan leeyahay Ilaahay ha u barakeeyo Ilaahay ha ka dhigo kii maaragtay ay ku badhaadhan waxa halkan la joogay isagana maaragtay abwaankii weynaa Cabdi Cali Bacalwaan waxa way dukaanka barakaysan la yiraahdaa barakaysan dukaanku waxyaabo badan buu ka kooban yahay sida waxyaabaha ragga maryaha dumarka guud ahaan maryaha caruurta maryaha ajnabiga dadka maha Soomaaliya kaliya ta maryaha ajnabiga rag iyo dumarba maadaama anagu aan ku xidhanahay dad badan oo saxaab aan leeyahay ajnabi ah kuma koobin kaliya ta dukaanka inaan Soomaali kaliya ta ay wax ka soo doontaan laakiin waxaan ka qayb dhigay inaan dad badan ajnabiya oo horeba aan saxaaban wax ugu diri jiray online maadaama online aan leeyahay aan online kayga hadana aan maanta u furay dukaan ballaaran oo ay soo booqan karaan oo wixii ay doonayaan dooqooga ay ka qaadan karaan marka kale dukaanka waxyaalo badan baan ka sheekan doonaa wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam horta waa farxad weeye in dadku ma garanaysaa meel kasta ay joogaan isku tashadaan oo ganacsigoodii iyo cibaadadoodii iyo diintoodii iyo waxoodii ay wada ilaashadaan marka aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u barakeeyo sidii ka rabaana oo khayr qabtana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha uga dhigo qof walba oo Soomaaliya maaragna hays garab istaagay dukaankana maaragna haykiyoy maaragna haynkoy maaragna walbadan ka fikiraan maaragna inuu dukaamoona la furo maaragna insha Allah una safaylaan dhaw waxaan laga furay magaalada Mainz Rheinland-Pfalz meel kasta oo joogto Jarmalka aad ku nooshiid aad kaga nooshahay jimlo iyo tafaariiq labadaba waad ka helaysaa qiimo ku raali galiyana waa laga siinayaa ma sha Allah tabarakallah wax kasta oo u baahan tahay ma gurigaaga ma naftaada aad u baahan tahay ama isqurxin ha ahaato koofeer ha ahaado aroosyada ha ahaato xinna marinta ha ahaato tigidhada Africa Asia Europa meesha alla meesha ka rabta ha ahaato tigidkii Jarmal gudihiisa ha ahaado wax kasta waad helaysaa kaargooy baa yaala waa dukaan ka horumarsan dukaamadii kale ee magaaladu ay lahayd ama Soomaalidu ay caadadaba u lahayd adeego kaliya lagu gadi jiray iyaguna madashaasi ka hadlay dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi oo iskugu jiray haween iyo dhalinyaro iyo waayeel ayaa dhammaantoodba hoosta ka xariiqeen si ballaaran u soo dhaweynayaan carwadan ganacsi ee laga furay magaalada Mainz ee gobolka Rheinland-Pfalz oo ku tilmaameen inay tahay goobtii ganacsi ee ugu horeysay ee wax walba laga heli karo Cabdirashiid Caynte Home Cable TV waddanka Jarmalka magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha